عقد جوفنتوس ayaa raadinaysa wariyahan bedel oo noqon kara xidiga Masuukaja kaas oo lambarka 9 loo adeegsado inta badan xidigaas ayaana kooxda ku sameeyay qaab ciyaareed wacan laakiin hadii uu dhaawacmo iyo bedel in lagu sameeyo waxay nadiga noqonaysaa in xidiga garbaha weerarka ay keento taas ayaana ka dhigan in kooxda ay suuq u galayso inay wariyahan rasmi ah oo bedel u noqon kara ciyaaraanka lagu magacaabo Masuukaja Cristiano Ronaldo oo qudhiis loo adeegsan karo lambarka 9 hayeeshee inta badan ka ciyaara garabka weerarka ayaa soo jeedinaya in kooxda kubadda cagta Juventus ay u dhawaaqdo soo xirigelinta ciyaaryahanka naadiga Safiil ka tirsan mikridaan ay leedahay kooxda kubadda cagta AC Milan وحدق lagu magacaabo Silva ciyaaraankan ayaa waxa macquul ah in uu ku biiro naadiga Real Madrid ama Chelsea midkooda sida lagu soo xiganayo Don Balon laakiin wakiilka xidiga Jorge Mendes ayaa isagu wuxuu doorayaa in xidiga uu markale ku celiyo dalka Talyaaniga ama Santiago Bernabeu sida wararku ay sheegayaan 38 milyan oo euro Sevilla ayaana qarka u saaran in si rasmi ah xidigaasi uu la wareegto maadaama heshiisku ku jiro in ciyaaryahanka ay kooxda amaahda kadib si rasmi ah u qaadan karto haddaba Cristiano Ronaldo ayaa daneynaya in ciyaaryahanka uu ka walqaboodiisa kubadda in la keeno garoonka kooxda kubadda cagta Juventus maadaama qaab ciyaareed wacan uu ku sameynayo horyaalka dalka Spain Silva ayaa ku fashilmay naadiga AC Milan ka ciyaarta dalka Talyaaniga kadib markii uu soo bandhigay qaab ciyaareed aan wanaagsaneyn taas ayaana keentay in xidiga ama lagu diro horyaalka dalka Spain gaar ahaan kooxda kubadda cagta ee Sevilla oo kamid ah naadiyada kala duwan ee sanadkan bandhiga waxaan sameynaya xilli kooxiisa kaalin saddexaad ku jirto ciyaaraanka lagu magacaabo Silva ayaa 8 gool shabaqa taabsiya ciyaaraha kala duwan ee horyaalka dalka Spain oo naadigiisa ka soo dhex muuqday kaliya hal kulan ayaan lagu soo bilaaban xidigan ayaa ahaa mid ka soo dhex muuqanay waxaana sidoo kale kooxda u saftay tartamo kala duwan sida Copa del Rey iyo Copa UEFA Europa League oo kooxda Sevilla ay ka qayb qaadanayso